qof ka hormar maxaa keenay anigu su'aasha isweydiinayo boqolaal jeer isku celcelinaya ayaa waxa ay soo baxay saddexdan arrimood haddii aad halka quality leedahay wallahi wa billahi dhalinyaro halka quality kaliya haddii aad leedahay noloshaada wax ku istaajin karay ma jirto dhaga xidhnaan ay ku dhacdo qofku dhaga xidhnaado waxyaabaha keenay waxa weeyaan luqad ma garanayo wax ku baadha ma garanayo dii aanad luqada ingiriiska baran aqoon badan baa ka maqan dhalinyaradeenna imika waxyaabahan aan ku arkay waxa weeyaan online-ka miyaa laga shaqayn karaya Facebook-ga miyaa wax laga samayn karaya kan kale miyaa wax laga waxayn karaya bal dibu dhaca xagu jira dadka qaar waa dad movers iyo shakers oo dhaqaajinaya waxa adduunka dhacay waxyaabaha dhacay dhaqaajinaya dadka qaarna waa dad daawanaya kuwa wax qabanaya daawanaya hebel wax buu qabtay hebel meesha buu tagay hebel waxa kale uu qabtay way arkayaan waxa dhacay dadka qaarna waxay leeyihiin maxaa dhacay way yaabayeen maxaa dhacay maxaa leeyay maanta maxaa soo baxay marka haddii aanad adigu noqon Allahu musta'aan xirfad lahayn haddii aanad luqad garanayn haddii aanad ogeyn adduunka meesha uu socdo haddii aanad predict garan karin haddii aanad akhriyi karin waxa maanta jira way kugu adkaanaysaa runtii waxaynu noolahay maanta xilliga ugu fiicnaa taariikhda aadamaha sidoo kale waxaynu noolnahay xilliga ugu xumaa taariikhda aadamaha maybe inaan marar badan ku soo celceliyay oo social media ay aragteen anigoo leh war waxaynu maanta noolnahay ama generationkii ugu nasiibka fiicnaa taariikhda aadamaha ayaynu nahay maanta sidoo kale waxaynu nahay maanta generationkii ugu nasiibka xumaa sabab maxay ku noqonaysaa sababtay ku noqonaysaa waxa weeyaan dadka qaar ayay u tahay xilligii ugu fiicnaayay maanta ay ku jireen dadka qaarna waxay ugu tahay xilligii ugu xumaa ee maanta ay ku jireen midkeebad noqonaysaa haddaba anigoo su'aasha isweydiinayo su'aasha ka duulaya ayaa marar badan waxaan isweydiiyey maxaa keenaya inay dadka qaar ka hormaraan maxaa keenaya inay wadan ka hormaro maxaa keenaya qof ka hormaro maxaa keenaya anigoo su'aasha isweydiinayo boqolaal jeer isku celcelinaya ayaa waxa ay soo baxay saddexdan arrimood baa kala kaxeeya wadamo saddexdaa arrimood baa kala kaxeeya shakhsiyaad saddexdaa arrimood baa kala kaxeeya ashkhaasta ama Allah musta'aan dadka laba qof oo isku guriya isku aqoona isku secondary ka soo baxay isku wax soo bartay ayaa dhici karaysa labada qof inuu midka ways noloshiisa Allah musta'aan nolol ka fiican u dhistay nolosha adduunyo nolosha aakhiraba nolol ka fiican u haysto oo la taaban karayo qofka kale sabab maxaa kala duwaya labada qof anigoo taas weydiinayo ku noqnoqonaya ayaa waxaan soo ogaaday inay tahay information ama aqoon waxaan marar badan meelaha ka maqashaan culimada oo leh haddaad adduunyo doonaysidna waxaad u baahan tahay xog iyo aqoon baad u baahan tahay haddaad aakhiro doonaysidna waxaad u baahan tahay xog iyo aqoon marka insha Allah haddii la yidhahdo waxaan maanta leer ku shidi doonaa ama hadda waxaan iftiin ku shidi doonaa bal waxaa kala duwaya dadka meelo badan baan tegey meelo badan baan Allah musta'aan arkay aqoontu maaha tabuugta laga akhriyo un maaha aqoontu waxay aqoon markaad meel tegtid aqoon cusub baa kuu baxayso oonad buug ka akhriyi karayn marka waxaan jecelahay wax kastoon arko ama wax kastoon Allah musta'aan la kulmo inay dhalinyarada Soomaaliyeedna ay helaan that is my goal marar badan dadyowga qaar baa ka odhanaya aniga maxaad adigu haddaad lacag badan samaynaysid ama haddaad wax badan samaynaysid maxaad adigu isugu koobi weyd waxaan dhageysanayay maalin dhaweyd ustaad maxamed oo ka hadlaya Allah musta'aan dadkeena Soomaaliyeed qofku waa inuu dantiisun eriyado unbay ku xiran tahay marka taas nigama joojinayso Allah musta'aan bulshada wax la wadaagno qofku wuxuu bulshada la wadaagayo ama wuxuu bulshada siinayo waa kirada uu ka bixinayo adduunkan maanta uu joogo that is why Allah musta'aan aan ugu celcelinaa marka saddex arrimood baa jirta saddexdaa arrimood waxay noqonaysaa koowaad waa mindset oo inaad fikirkaaga iyo adduun aragaaga Allah musta'aan aad dhistid mindsetka weyn mindsetku muxuu noqonayaa mindsetka marka laga hadlayo qofka waxa jaangooya ama qofka waxa keena wuxuu helayo waa adduun aragiisa sidoo wax u arkayo adduun aragiisa wuxuu noqonayaa maanta laba qof oo meel wada jooga ama laba qof oo maanta xagga wada jooga ayaa labada qofna wuxuu arkayaa wax yar oo niqis buu arkayaa qofna wuxuu arkayaa wax weyn marka waxa kala duwaya waa adduun aragiisa weeyaan laba qof oo gaari wada saaran ayaa wuxuu arkayaa midna wuxuu arkayaa jar buu arkayaa midna wuxuu arkayaa meel qurux badan buu arkayaa marka waxa kala duwaya waa adduun araga muhiimadu maaha meeshaad ku dhex joogtid iyo waxa dhex joogtid ee waa adduun araga ta koobaad ee kala duwaysa inuu qof ka hormaro ta koobaad ee kala duwaysa inuu wadan ka hormaro ta koobaad ee kala duwaysa waxa weeyaan inuu qofku adduun aragiisa iyo wuxuu arkayo uu wax weyn ka dhigo taas baa kala saaraysa labada qof inuu qofna noqdo qof noloshiisa meel gaara inuu qofna noqdo qof noloshiisa meel gaari waayo waxaan isweydiinayay magaaladan waa joogi jiray deegaanadeena Soomaaliyeed waa joogi jiray 10 sano ka hor iyo maanta maxaa kala duwaya maxaa ku kala duwaya adiga Allah musta'aan shakhsi ahaan maxaa ku kala duwaya qofkii hore ahayd iyo qofkaad maanta tahay maxaa ku kala duwaya waxa ku kala duwaya waa xog
iyo information marka xogtaas iyo informationkaas waa takeenaysa inuu qof noloshiisa uu sare u baxayo uu sare u socdo ma aha qofkaasi allah musta'aan inuu ka fiican yahay tartanka fardaha markay farduhu tartamayaan oo aragtaan millions of dollars ayaa la dhigtaa oo lagu kala badiyaa tartanka dhacaya labada faraska kaalinta koobaad galay wuxuu 10 times more lacag ka badan u sameeyaa faraska kaalinta labaad gala miyuu faraska kaalinta labaad galay uu ka aqoon fiican yahay miyuu ka orad badan yahay in yar buu ka garanaya marka one key information ama hal fikrad oo kaliya tood maanta xagan kala tagtid ama caawa xagan aad kala tagtid ayaa noloshaada dhinaca kale u bedeli karaysa one key information hal fikrad oo kaliya sidii ay nolosheeda Allah subhanahu soo bedeshay marka waxa isku daydaa inaad adduun aragaaga ka shaqeysid adduun aragu waa ka kala duwaya laba qof inay wax kala duwan arkaan arrinka labaad oo qofku u baahan yahay waa inuu naftiisa aamino qof aanan naftiisa aaminsanayn way kugu adkaanaysaa Allah subhanahu inaad adduunka wax ka keentid qof unique tahay qof fariida tahay qof ilaahay uu dadka kala ka duway baa tahay potentialkaaga iyo kartidaada sidee baad u taaban karaysaa maybe badkin badan oo inaga mada inaad sugaysaan Allah subhanahu inaan waxyaabo skillskan technology-yadan ka hadalno inkastoo xagga dambe ugu tagno waxaan maalin dhaweyd akhrinayay daraasad lagu sameeyay Nigeria 1500 oo qof bay ka xeeyeen 1500 saddex group bay u kala saareen group waxay ka dhigeen training lama siin bila training baa lagu daayay groupna waxa lagu train gareeyay skillska like marketingka sellingka waxyaabaha Allah musta'aan business skillska ayaa lagu train gareeyay groupka saddexaadna waxa lagu train gareeyay character skillska ama qofka characterkiisa haday noqoto disciplinekiisa haday noqoto sabir dhigashadiisa haday noqoto sidoo Allah musta'aan u noqon lahaa marka characterkooga la dhis muddo sanad ka bacdiya ayaa dabagal lagu sameeyay groupkii kale oo la eegay data waxay 3 times more ay ka sales bateen oo ka faa'iido bateen dadkii character skillskooga Allah musta'aan la dhisay haday noqoto adduun aragooga haday noqoto mindsetkooga haday xirfadooga la dhisato marka so that's why ay muhiim uga tahay inuu qofku marka hore gudihiisa iska soo dhigo dhalinyaro badan baan arkaa waxay rabaan inay business bilaabaan laakiin gudahooga ma dhisna qof waxa business dhisi karaya ama business online ha noqdo ama mid offline ha noqdo mar dhaweyd baan maqlay Allah musta'aan walaalihi xagan ka hadlayo qof doonaya Allah musta'aan inuu markii wax wada noqdo marka inaad characterkaaga dhistid oo gudahaaga soo dhistid ayaa ka awood badan taasna maxaa kow ka inaad belief inaad naftaada aamintid haddii aanad adigu naftaada aaminin aanad adigu isasiin haddii aanad adigu aaminin wallahi wa billahi wa tallahi arrinkan wax weyn baa aniga noloshayda ka bedelay qof caadi aan ahaa noloshaydu caadi bay ahayd laakiin maalintan soo bedelay waxaan anu iska aaminsanahay iyo qofkan anu iska aaminsanahay waxa isbedelay dhammaan adduunyadii ugu hagaarsaneed marka kow waxaad u baahan tahay inaad aamintid qof inaad tahay qof unique qof ilaahay potential dhex dhigay qof ilaahay karti siiyay qof ilaahay adduunkan u keenay inuu wax ka qabto dadka qaar waxaad arkaysaa potentialkooga siduu ilaahay ku keenay qofkii wuxuu la dagaalamayaa nolosha caadiga waa maxay nolosha caadiga taas way yartahay marka iskala jiid oo hankaaga iskala jiid oo wax weyn adduunka ka doon oo wax weyn adduunka ka damac waa kii abwaankii lahaa marka damaca qeyrka yahay dunidan maare adna dib u guur maaha oo hankaaga duudub marka waxaad u baahan tahay inaad iskala jiidid oo hankaaga kala bixisid oo Allah musta'aan han weyn yeelatid naftaada naad aamintid arrinka kale saddexaad u baahan tahay haddii aad naftaada aamintid haddii adduun aragaaga kaliya dhistid kaliya intaasi kuguma filna waxaad u baahan tahay Allah musta'aan inaad commitment yeelatid oo noqotid qof waxaas uu naftiisa ku aaminay commitment ku noqonayo 100% haday noqoto adduunkiisa haday noqoto akhris everything aad naftaada ka aaminsan tahay waa inaad commitment 100% waa inaad commitment ku noqotaa oo waxa dul joogtaa maybe isbedelka marka laga hadlayo ama qofka aad bedelis marka laga hadlayo dadku intooda badan waqti yar bay u qaataan laakiin waa noloshaada oo dhan maalinba maalinka ka dambaysa qofka tahay baad ka fiicnaanaysaa maalinba maalinka ka dambaysa qofka tahay baad ka wanaagsanaanaysaa maalinba maalinka ka dambaysa adduun cusub ayaa ku furmaya marka waa inaad markasta isku daydaa inaad ka fiicnaatid qofkii aad ahayd arrinka kale ku xiga waxa weeyaan inaad discipline yeelatid haddii aanad naftaada ka adkeyn waxaan aad uga fikirayo qofka dhalinyarada ee deegaanka ku dhex koraya ee duruufahaas ay maanta haystaan sidee buu u noqon karayaa qof noloshiisa successful noqday haddii aad halkaa ku waalati leedahay wallahi wa billahi dhalinyaro halkaa ku waalati kaliya taad leedahay noloshaada wax ku istaajin karay ma jirto waayo haddii aqoon noqoto waxaad leedahay discipline-kii aad wax ku baran lahayd haddii shaqo noqoto waxaad leedahay discipline-kii aad wax ku dul joogi lahayd boqolaal qof oo ka xirfad badan waxaad ku dhaafi karaysaa discipline-kaaga ama naftaada inaad ka adagto marka naflaylintu waa waxa ugu muhiimsan ay tahay maanta inaad baratid qaybta kale ku xigta haddii aan u galno skillska ama xirfadaha u baahan tahay haddii aad tahay sidaa doontaa aad adduunka u fiican tahay haddii aad sidaa doontaa aad adduunka Allah musta'aan qof wanaagsan u tahay laakiin aanad xirfad lahayn
way kugu adkaanaysaa waxaad u baahan tahay inaad xirfad yeelatid marka xirfadaha marka laga hadlayo kuwa laftigooda waa xirfado oo character skillska inaad yeelatid waa xirfado sidoo kale waxaad u baahan tahay xirfado lacag bixinaya Allah musta'an waayo dhaqaalaha markaynu ka hadlayno dhammaanteen waxaynu wada baahanahay Allah musta'an faalal dhaqaale si aynu u helno nolol fiican dhammaanteen waxaynu u baahanahay inaynu entrepreneurshipka oo wadada kaliya teed ku gaari karaysid faalal qofku inuu shaqeeyo oo Allah musta'an shaqeeyo ma siinayso inuu wax badan keeni karayo inaad ganacsada noqotid ama inaad business samaysid waa wadada kaliya teed ku gaari karaysid xorriyad dhaqaale waa wadada kaliya teed ku gaari karaysid xorriyad freedom ama time freedom maanta waxa dhici karta maybe barkiina Allah musta'an professional world ka shaqeeyna kala arduun duwana macquula laakiin qof macquul ay tahay inuu sanadkii $100,000 sameeyo laakiin waqtigiisa aanan control karin waqti aad qasab tahay Allah musta'an shaqeeyo laakiin qofka entrepreneurka hadii uu business dhiso businesskiisa Allah musta'an wuxuu u fasaxayaa inuu location free helo iyo time free helo location freedom inuu helo time freedom inuu helo iyo financial freedom taas buu ku siinaya gaar ahaan teknolojiyada maanta aynu nool nahay markan eegayo aan xaggan imaado adduunka kala nolosha caadiga teknolojiyada wax caadi ah ka tahay Allah musta'an nolosha caadiga loo isticmaalo haday noqoto arimaha dawladda haday wax kaaga xidhnaadaan haday noqoto inaga hadda waatan isticmaalna Allah musta'an waatan digital wallet kana isticmaalayno oo hadda intan Ethiopia ka soo daalday wali lacag kaasha intan taabtay way yartahay oo waxaan isticmaalnaa Allah musta'an eBir iyo waxyaabaha la midkan isticmaalayna marka waad arkaysaa nolosheeni day after day in isbedelayso waad arkaysaa applicationadan Uber iyo kuwa la midka Faras iyo kuwa la midka marka waad arkaysaa day after day in noloshu isbedelayso adduunka kale caadi bay ka tahay Allah musta'an galbeedka inuu qofku online ka wax ka iibsado inuu online ka Allah musta'an wax ka barto online ka koro leverage-ku waagii hore marka laga hadlayo waxay ahayd inuu qofku capital haysto inuu lacag adagoo cash haystay ahayd arrinka labaad ee ahayd Allah musta'an inuu qofku haysto inuu dad iyo team badan uu haysto Allah musta'an marka qofku wuxuu waagii hore leverage gareynay other people time ama other people money oo qofku ama cash badan inuu haysto ama inuu haysto dad badan inuu haysto wax kala shaqeynay laakiin maanta maxaa soo baxay code waa Allah musta'an waa askari shaqeynaya oo back ka shaqeynaya marka maxaa kamid ah code-ka inaad e-commerce gashid inaad wad aragteen Amazon wad aragteen dropshipping wad aragteen affiliate marketing waxa soo dhan waa wax fududeynaya inaad heshid Allah musta'an code aad leverage garis marka code-kaas waa askari habeen iyo dharaar shaqeynaya hadii aad dukaan caadi ah leedahay dukaanka caadiga ah waxaad wuxuu ka iibin karaysaa inta meesha kula joogto laakiin hadii aad website leedahay website-kaasi wuxuu ku siinayaa inaad wax ka iibin karaysaa imika bartaan ma taaganahay sales baan sameynaya hadda bartaan taaganahay waxba iibinaya waxa keenayna ma waa one key information kaliya toon hayo oonad adigu hay marka koorku wuxuu ku siinayaa adigoo aanan meeshii joogin inuu ku shaqeyn karayo taasna maxaa keenaya teknolojiyadu maanta waxay soo saaraysaa millions of waxaan tagay hadda waxaan joogay Silicon Valley San Francisco waxa isugu yimaada dhammaan tech entrepreneurska iyo dadka adduunka teknolojiyada Allah musta'an xiiseynaya wax ka wada dhammaan wada arkaysaa application ay ku wada mashquulsan yihiin meelaha co-work space ko kale WeWork iyo Regus iyo meelaha markaad tagtid waxaad kula kulmaysaa dhalinyaro badan cafeteriada ay fadhiyaan waa meesha degan yihiin Apple iyo Google iyo Facebook iyo degan yihiin usbuuc ka hor baan hadda joogay wadyaabas Allah musta'an qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay sidoo application u dhisi lahaa maalin dhaweyd baa muuqaal baan sameeyay Allah musta'an waxaan baaritaan ku sameeyay awoodda ay teknolojiyadu leedahay waxaan eegay dhismaha ugu qaalisan waagii hore qofku inuu dhismayaal waaweyn iyo guryo iyo in waxyaabaha haystay ahayd deeto waxaan eegay dhismaha ugu dheer ee ugu qaalisan adduunka waa kee Burj Khalifa noqdo dabaqa ugu dheer waa Dubai buu ka dhisan yahay lacagtu sanadkii dhaweey soo saaray 2022 waxay ahayd $697 milyan waxaan kaloon Allah musta'an eegay Airbnb waa application la sameeyay dhowr sano ka hor application-kaas wuxuu sanadkii dhaweey soo saaray $8 milyan iyo $400 milyan marka waxay la farajinayaan maxay iyagu guri ma laha waxba ma laha dadka caadiga guryaha caadiga iskale ayuun bay guryahoogi kuwii guryaha u baahnaayo waxay isku xidhayaan Allah musta'an kuwii guryaha rabay Uber wad aragteen Uber waa billion of dollars bay Allah musta'an sameeyay iyagu gawaari ma laha Uber gawaari ma laha waxay la faraj gareynayaan waa code-ka waxa uu shaqeynaya askariga uu shaqeynaya application-ka xaga ku jira weeyaan millions of qof baa Allah musta'an isticmaalaya marka teknolojiyadu maanta way ka awood badan tahay waliba qof dhalinyaro marka tahay hididiila leh dhalinyaradeena imika waxyaabahan aan ku arko waxa weeyaan online-ka miyaa laga shaqeyn karaya Facebook-ga miyaa wax laga sameyn karaya kan kale miyaa wax laga waxayn karaya bal dib u dhaca xagu jira marka waxaad u baahan tahay inaad aggressive noqotid inaad luuqad barnaamijka inuu qofku dhaga xidhnaano ay ku dhacdo qofku dhaga xidhnaado waxyaabaha keenay waxa weeyaan luuqad ma garanayo wax ku baadha ma garanayo inaad aggressive ku noqotid inaad luuqadda Ingiriiska baratid haddii aanad luuqadda Ingiriiska baran aqoon badan baa ka maqan
imika normal and natural bay ka tahay dunida koobaad inuu qofku noloshiisa ka sameeyo waliba millions of dollars uu ka sameeyo online waa normal and natural haddaad baadhan youtube-yada haddaad gashaan tiktok-yada haddaad gashaan meel kasta waad ka arkaysaan laakiin dadkeena maadaama uu dibudhac badan dhacay maadaama uu burbur dhacay waxaa sidoo kale burburay aqoon badan baa burburtay waa kii madaxweyne maalinkii dhaweyd ka hadlayay marka dhalinyaro waxaad u baahan tihiin kow xirfadda koowadeed u baahan tahay inaad aggressive ku noqotid inaad luuqadaada ingiriiska dhistid haddii aanad luuqad ingiriisa garanayn way kugu adkaanaysaa waad yaabanaanuun dadku saddexun bay kala baxaan dadka qaar waa dad moveris iyo shakerisa oo dhaqaajinaya waxa adduunka dhacaya iyo waxyaabaha dhacaya dhaqaajinaya dadka qaarna waa dad daawanaya kuwa wax qabanaya daawanayaan hebel waxbuu qabtay hebel meeshaa buu tagay hebel waxaa kaluu qabtay way arkayaan waxa dhacay dadka qaarna waxay leeyihin maxaa dhacay way yaaban yihiin maxaa dhacay maxaa la yidhi maanta maxaa soo baxay marka haddii aanad adigu noqon allah mustacaan xirfad lahayn haddii aanad luuqad garanayn haddii aanad ogeyn adduunku meeshuu socdo haddii aanad predict garayn karayn haddii aanad akhriyi karayn waxa maanta jira way kugu adkaanaysaa tiknolojiyaduna maanta waa awoodda ugu weyn ee adduunka taala waa awoodda ugu weyn ee adduunka taala qofka ka dib dhacayna waa qof ka dib dhacaya wixii allah mustacaan adduunka maanta ka jiray arrinka kale ee allah mustacaan u baahan tahay marka maanta leverage laga hadlayo koor baynu ka soo hadalnay koorku waa ka Uber Airbnb Alibaba allah mustacaan iyagu warshado ma laha waxay leverage gareynayaan waa dadka kale warshadooga marka maanta cidda lacagta ugu badan samaynaysa waxa weeyaan waa cidda application iyo koor samaysata maanta millions of course baa soo baxaya Silicon Valley qof walba wuxuu ku fikirayaa sidoo application u sameyn lahaa normal natural bay ka tahay 18 jiro 19 jiro waxaad arkaysaa code sameeyay oo application sameeyay oo software as a service sameeyay oo millions sameynaya kuwa kale oo waxa jira allah musta'an content create gareynay content ka asku nimaadna hadda marka leverage laga hadlayo waagii hore maxay ahayd ama qofku wuxuu leverage gareynay lacag ama qofku wuxuu leverage gareynay dad kale laakiin maanta leverage tire koor baynu nir koorka waynu sheegnay allah musta'an Airbnb iyo Uber iyo AliExpress iyo Amazon iyo washeeg content baa jira content is a king maanta muuqaalka baxaya ama fiidiyoyadaas baxay waxa daawanay 10,000 iyo 100,000 qof ayaa daawanay 100,000 iyo 10,000 ee qof ee gaarayo waagii hore way adkay qof walba inuu telefoonkiisa haysta maybe inuu waagii TV sidaad ku daawatay ay adagtaa ama ina TV u fadhiisato qof walba telefoonkiisa aad buu kala socdaa ama YouTube ha noqdo ama Facebook ha noqdo ama meel kale ha noqoto marka content creation ku sababtan Allah musta'an labada nigu soo dooraya maanta ganacsiyo waaweyn oo niga sheekeen karay ma jirto oo Allah musta'an oran karayo war dhalinyaro beeraha gala oo waxyaabaha kala gala way fursadahaas way banaan yihiin oo malihi Allah musta'an laga tago waxyaabaha kale hal la qabto oo barkeen ha qabtaan laakiin qofka dhalinyarada ee wadankeena ku dhex koraya ee maanta hungariga ee u gaajoonay inuu noqdo qof wax noqdo oo rabo inuu wax noqdo wuxuu u baahan yahay kow inuu luqadiisa dhiso laba inuu fahmo koodka inuu fahmo saddex inuu content-ka fahmo content-ka hadaba muxuu yahay content-ku waa askari ku shaqeynaya maanta business ka maarmi karaya oo oran karaya Allah musta'an business kaas baan ahay oo content-na ma create gareeyo dadkuna ima gaaraan habeen dhaweyd Allah musta'an meel baan joogay inaan baan la joogay Allah musta'an meel baan joogay meherad alaab baan ka iibsanay marka waxaan weydiiyay goormaad meherada furto marka wuxuu yiri dhowr bilood koor baan furay meheraduna meel yar waxay ku taal Allah musta'an yara qarsoon bay ku taal marka waxaan weydiiyay ku yiri marketing miyaad samaysaa mise xayisiis social media ma ka faa'iideysataa content ma create garaysaa dadku wuxuu yiri maybe waxaan anigu ma garanay buu yiri aqoon ma marka maanta business guri dhexdii ku dhex yaala ayaa wuxuu sameeynaya millions of dollars waad ku qori karaysaa YouTube-ka maanta ma jirto wax qarsoon everything is out there waxaas bay ku dhex jirtaa marka maanta inaad content create garaysid oo content yeelatid oo community business kaaga dhisatid ama niche maybe inaad Allah musta'an personal brand tartiina dhisatid ama inaad business brand yeelatid marka core iyo content aad isku heshid waxa bay raadku istaajin kartid marka maanta is way cheaper inuu qofku business bilaabo maanta xilli ay ka fududahay oo ka wanaagsan tahay maanta inuu qofku business bilaabo wali taariikhda aadamaha miisoo mari marka waxaad u baahan tahay Allah musta'an inaad content leverage garaysid content wal produce gareeyaa wuxuu maraa edit buu maraa si baa loo sameeyaa barkiin naga mid Allah musta'an YouTube-ka inaad iga xirantaa macquula markaan bilaabaynay content-kaygu ma fiicneen hadda Allah musta'an step by step waan kornay team baa jira Allah musta'an igala shaqeeya waan systemize gareynay waan business gareynay ma istaagan week after week dadku wax faa'iido laan Allah musta'an ku cilnaa noloshooda oo bulshadeena Soomaaliyeed ay u baahan tahay Allah musta'an ay u baahan tahay marka xaga business ahaan waad ka koraysaa personal brand ahaan waad ka koraysaa waxaan talabaadeen qofka dhalinyarada xagan jooga maanta aan ku dhiirigelin waxaan inuu qof walba sameeyo personal brand waagii hore dadku waxay corporate ku xidhnaan jireen ama waxa dadka hayn jiray information waxa ayuun bay hayd shirkadka waaweynta ama TV-yada BBC-da CNN-ta waxyaabaha la mid ka baahan jiray laakiin maanta social media
وسوشيال قف والبا أو هي واحد كريت كريه قف والبا أو عبلود كريه قف والبا واحد سمين كريه قف والبا أدونك واحد توسي كريه marka haddii aad nad baran maanta content creation haddii aanad baran waad ka dib dhici doontaa xilligan Allah musta'an maanta inuu joogno waayo content is a king maanta xilligan ay nool haddii business noqoto communication ka Allah musta'an waxa isku keen xilay waa content haddii noqoto personal brand haddii noqotona waa content weeyaan marka dhalinyarada maanta raba haddaan maanta anu 10 sano ka hor Allah musta'an ma waxaan position kaaga joogi lahaa content iyo code labadaas man baran lahaa iyo luqadda ingiriiska marka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen tuulalkan inaad barataan tuulalkan ma aha wax maalin iyo laba ku imanayo dhalinyaro badan baa Allah musta'an la soo xiriira waxaad u baahantahay dedication hard working maybe 6 bilood oo kaliya si fiican u fadhiisatid oo wadnahaaga dul dhigtid ayaa kaaga muhiimsan wallahi 4 sano 5 sano oo Allah musta'an waqti badan ku soo bixisid waxbarashada caadiga 6 bilood oo fadhiisatid oo luqadaada dhisid 6 bilood oo fadhiisatid oo baratid Allah musta'an sida code loo sameeyo website loo sameeyo Shopify store loo dhiso aad baratid Allah musta'an social media marketing loo sameeyo aad baratid content creation aad baratid affiliate marketing aad baratid luqadda ingiriiska ayaa kaaga muhiimsan oo kaaga lacag badan inaad Allah musta'an waqti badan joogtid marka dhalinyaro badan inay isweydiinayaan baa macquula maxaad ka baran karaysaan xageed ku baran karaysaan aqoontii ugu sareysay dunida ayaan soo Soomaali gareynay soo waxaynay فاع عصب اللهم استعان وحنا سمينا فاع عصب.io حاجات بدل اللهم استعان كهلسان عددوا بهنتين برتان أدود ما سنتين thank you